loo dejiyaa heerka haddii degmooyinka ay shaqeyn waayaan doorasho hal oo hal qodah waa si goobada hoos loo gudbina oo muhiim arrimaha dastuurka intaas hoysta oo muhiim xilibkii balwada soo celiyo dadka runtii kaabayaasha dhaqaale iyo waxyaabaha dhaqaalaha oo muhiim barnaamijka dhaqaale ee horumarinta dalka national development plan in lagu dhaqmo runtii wasaaraha dowladeeda soo gudbiya aasaaska dalka lagu dhaqmo iyadoo muhiim xiriirka caalamiga iyo runtii wixii laga qabtay qodayso anagu inta sida doorashada dunida sanadka wax badan oo soo boodaya waxaa ku soo jirin aqoon sharciyeed loo yaqaan waa nin ku dhex jiray systemka waa isleeyahay runtii maanta kaga haboonaa inuu meesha yimaado oo meesha aqoonteeda khibraddeeda iyo iskoolka dhexdooda dadka maanta runtii madaxa wasaarada xafiisyada iyo teknolojiyada mulka hadii ay markii wasaaradda maanta aniga la wareejinaya anaa de kulanka suugaya insha allah
لكن ما كان مسؤولية شخصية كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إلهي أكبر سبحانه وتعالى هذا وحده سيدنا حي إلهي من الدروسيون وذكر ذلك وحده مكة استعراضه أسوق صوراته شنو هذه كثير بس اللي هو حاجة بقول لك على مكة هذه صندوق يرجع كل يوم هذا بنجيل هاي لكن وش معامل ما تقول أقول يا سيدنا داير تقول طيب بسم الله الرحمن الرحيم وما سنتين بعد الصحافة مناسبة waxaan qabanay xil wareejinta ra'iisul cusub inaan ku soo dhaweeyno halka in golaha wasiirada ay sii baxayeen oo hadda sii shaqeynaya ilaa ay golaha wasiirada soo magacaabo ay isbartaan hawsha loo wareego maanta waa aan ku faraxsanahay runtii in shalay aqlabiyad buuxa lagu gudbiyay ra'iisul waxaan u rajaynaynaa guul insha Allah dalku meel fiican buu soo istaagay horumar weyn waa gaaray runtii in afartii sano intuu isku yimaado doorasho ay dhacdo markaas dadka qofka ay gartaan iyo xukuumadda la gartay inay dalka hogaamiso in dalka loo dhiibo dhib kastoo jira dhibaato kastoo la soo maray laakiin dalku uma hakan uma istaagin wuu ku socday doorashaa la qabtay maanta isagoo maanta aan hayna ayaa la gaaray waa mahad ilaahay weeye waqti adaga la marayaa waqti wali loo baahan yahay amniga in la dhameystiro awaaraha jira runtii wax weyn laga qabto ummadda Soomaaliyeed ilaahay awaaraha ka qaado waxaan ku rajaynayaa ra'iisul cusub oo naqaano kartidiisa aqoontiisa khibradiisa iyo runtii dadkiisa inuu dalka meesha u taagan yahay wax badan ka bedeli doono horena u sii wadi doono وانا رجينا ان شاء الله عفوا سو سقطه ان سي حسنهم سياسadaas ku socoto dalkana uu ka baxo meesha uu maan taagan yahay aad baan soo dhaweynaya hadal badan ma rabo inaan si raahdo ra'iisul cusub ku soo dhaweynaya insha Allah inuu wax ka yiraahdo waana mahadsantiin intii aan la soo shaqeysay bacda saxaabada aad iyo aad رئيس هore عمر عبد الرشيد علي شرماركه رئيس ku-xigeenka gudoomiyaha ku-xigeenka baarlamaanka waa mahadsantihiin maantay waxay ahayd siduu ra'iisul wasaaruhu sheegay maalin aan u imid halkan inuu ra'iisul wasaarihii hore baro golaha wasiirada sii haya xilka intaan ka soo magacaabi doono haddii la yiraahdo dawlad cusub oo dalka hore u sii wada marka hore waxaan rabaa inaan mahad ballaaran u jeediyo ra'iisul wasaaraha iyo dawladdiisaba oo runtii dalka meel wanaagsan soo gaarsiiyay waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan u sheego Soomaaliya inay maanta meel fiican taagan tahay oo hore laga sii wadi karo inaan isu nimaadno doorasho galno xukun isku wareejino annagoo isku raalle ah iyada lafteedu waa wax aad u weyn waxay u baahan tahay waxaan haysanay inaan hore u sii dhisano dadkii nala soo shaqeeyay oo ahaa xukuumadihii horena oo ugu horeeyay ra'iisul wasaarahana waa inaan u mahad celinaa mahad ballaaran aan u jeedinaa haddii ilaahay yiraahdo
annagoo wada tashi samayn doona ayaan soo dhisi doonaa xukuumad waddankan meeshii uu taagan yahay ka sii ambaqaada shacabka Soomaaliyeed iyo kulligiin dadka siyaasadda ku jirana waxaan idinka codsanaynaa inaad gacan noo fidisaan si dalkan kulligeen annagoo wada jira aan hore ugu wadno maalmaha soo socda haddii Ilaahay yiraahdo waxaan shacabka Soomaaliyeed oo dhan ka codsanayaa inaan kulligeen meel ka wada istaagno oo aan isku dayno inaan wax ka qabanno dadka Soomaalida ku dhibaataysan abaaraha dawladdeeda iyo aniguba maalmaha soo socda waxyaabaha ugu horeeya oo wax ka qaban doono waa masiibada abaaraha sida dhibka hadda jira looga bixi lahaa iyo sidii aanay dib dambe u soo noqon lahayn waxaan marka u yeerayaa haddii Ilaahay yiraahdo aan ka codsanayaa ganacsatada culimada dhalinyarada dumarka aqoon-yahanada madaxda xildhibaanada baarlamaanka labada aqal cid walba oo Soomaaliyeed inaan gacmaha isqabsano dadkeena annagu aan u gargaarno annagu haddaan gacmaha isqabsano ayaan cid kala caawinaad weydiisan karnaa mar labaad waxaan u mahadcelinayaa Ra'iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid iyo madaxda halkan nagala soo qayb gashay saxaafaddana waxaan leeyahay door weyn ayaad ka ciyaartaan nabadeynta iyo dawladnimada Soomaaliya laakiin idinkana mas'uuliyad ayaa idin saaran inaad xilkiina u gudataan si asluubaysan runta inaad sheegtaan dadka Soomaaliyeed aad runta u tabisaan annagana aadna weydiisaan su'aalo dhaba laakiin inaad ka foojignaataan inaadan ummadda dhibaatada ay ku jiraan mid ka badan aad u keenina annagana diyaaran idin ahay inaad la shaqeyno laakiin waxaan rabnaa idinkana si daacad inaad noola shaqeysaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh